halkani waa deegaanka Muusi oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jira degmada Daawo Soomaaliya gobolka Gado. wabiga Daawo ayaa ku soo fatay deegaanka oo markaasi qoysaska degnaa deegaanka ay ka barakaceen dhamaantood iyagoo markaasi miciin baday duleedka deegaanka Muusi inay ku noolaadaan. sidoo kale deegaanka waxaa ku yaalay dhul beereed balaaran oo ay saarnaayeen dalagyada noocyadooda kala duwan. dadka deegaanka waxay noo sheegeen in uu wabiga la tagay matoorada saarnaa beeraha oo markaasi wabiga Daawo ku soo fatay xilli habeen ah. deegaanka waxaa booqday guddiga masiibooyinka degmada Daawo Soomaaliya oo markaasi soo arkay xaaladda nololeed ay ku nool yihiin qoysaska ka barakacay fatahaada wabiga Daawo ka sameeyay halka. guddiga indhaynto fatahaadaha uu sameeyay wabiga Daawo kaasoo qasaar badan geystay. waxaa kaloo nala joogo guddiga tuulada Malkari tuulada Unsi oo hadda aan joogno iyo chiefkeedii. saad arkaysaa tuuladan waxay ahayd tuulo xoolo dhaqata beerey ah ee aad ugu tiirsan beeraha xaggooda. tuulada oo ku noolaayeen boqolaal qoys ku noolaayeen ilaa hadda saacadan wax ku nool oo bani aadan ma joogan sababtoo ah biyihii ayaa galay. waxayna waa carareen dhul aan saa uga fogeyn oo 2 kiiloomitir u jirto oo dhulka taaga xaqiisa ayay u banaan baxeen. sidoo kale waxaa ilaalinaya shakhsiyaad oo ayaa jooga sida guddiga oo kale. dhulkan beeraha oo waxay lahayn dadkan wadad beeraley beeraha ugu tiirsan beerahoodii waxay ku waayeen dalag fara badan aad ugu tiirsaneen taas oo wabiga uu cagta mariyay fatahaadaha. alxamdulillaah rabbil caalamiin insha Allah maanta qasaarahaas ayaan dhex taaganahay. ilaahay baana keenay ilaahay baanu ku mahadinaynaa. waxaan markaa codsanaynaa jaaliyadaha ilaahay waxaan uga baryaynaa marka koobaad inuu alxamdulillaah rabbil caalamiin qasaariga gaaray u soo dhameystiro. sidoo kale cid alle cidii u naxayso oo dawladda Soomaaliyeed koow ka tahay iyo dadka muxsiniinta wax la baxay waxaan uga codsanaynaa inay dadkaasi walaalahooda oo dhibaatada gaartay ay la soo gaaraan wax alla waxay u awoodaan ku caawiyaan insha Allah hadii ilaahay tuulada Unsi aan soo gaarnay oo kamid ah meelihii wabiga ku fatahay meelihii dadkii markuu wabiga fatahay beerihiina ay lagu qasaaray dalagii iyo matooradii iyo agabkiiba looga qasaaray. ummadii iyo mujtamacii bulshadii deganeedna ay ka qaxday oo isaga carartay. maantana aan imaanay ayadoo qali ah oo cidna joogin dadkiina ay ka carareen. marka waxaan u imaanay inaan indheeno xaaladana qiimeeno ogaano marxaladda dhabta ah iyo wixii ay geysteen iyo dadkii meeshay u barakaceen. marka hadda waxaan taaganahay waxa waa Unsi bartankeedii waxa naga dambeeyay waa biyihii soo fatahay iyo dhismihii iyo dhulkii uu ku fadhiyay tuulada oo dhammaan ay biyuhu wada qaateen. waxaa markaa hadda nala joogo anaga guddigii gurmadka ee degmadan nahay. waxaan imaanay tuuladii waxaan la joognaa waa dadkii qaar kamid ah iyo waliba chiefkii aniga Maxamed Aadan Buraale ana gudoomiye ku xigeenka tuulada chiefkii hadda balaxa uu nooga maqan yahay. meeshan waxaa ka dhacay waxaan leeyahay xaalkiisa og yahay oo masiibo ah. meeshan oo ku qasaareen 34 matoor iyo biyihii looga soo baxay wixii dalaga ay ku burbureen baalkii basal yaanyo wixii sarac dadku ku baaba'een. hadda waad arkaan biyihii iyo guriyihii ay lahaayeen dadkiina waa barakacay duurkay jiraan. annaka labtanada meel ay taagnaa weyno haddaan qollaan korkooda la soo hobanay. haddii meeshan waxaan u baahanahay wixii oo hay'adaha iyo wixii uun gurmad u geli kara tuulada iyo dadkan meesha ku barakacay dadku waa arkaan dawladda federaalka iyo cid kasta oo qosayso Soomaaliyeed yaan codsanayna inay wax ka qabtaan wax nooga qabtaan arrimaha iyaga. hadda waxaan ka imaanay tuulada Unsi ma ka imaanay oo dadkii ay ka maqan yihiin oo ay biyihii fatahaada oo la soo qaxeen. waxaan soo aadnay meeshii dadkii ay soo qaxeen oo banaanka ahayd. hadda waxaan joogaa dadka qiimaha kamid ah gurihii dadkii soo qaxay oo reer Unsi. aabahan baan la joogaa iyo caruurtiisii iyo waabkiisii meesha ku dhistay. marka ay adeer anagu Unsi ma ka soo qaxnay. afar habeen baan meeshaan joognaa fatahaadaan ka soo carnay waxa la waxaan ka aan lahayn iyo beerihii matooradii abuurkii beerta la geliyay wixii oo dhan waa soo carnay biyihii banaanka inoogu imaaday guriyihii inoogu soo galay. marka sidaasaan mataqaanaa meeshaan ku soo degnay. sidaas way waatan meeshaan hadda guri la'aanta u jeedaan oo bacayaha meeshaan lagu taagtay guriyihii laga soo qaxay. dadka inta soo degay aad u tirbadan waxaan Soomaali waxaan u jeedaa waa hadda waxba hadda ku darnadu baahantiin maxaa waan kulay Kaalmo baan u baahanahay raashin baan u baahanahay hadda la fuuro qalab oo